السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد aad baan kuu salaamayaa. Shirkani wuxuu ahaa shir ka dhacay qadka telefoonka 15kii bisha maalinimadii sabtida soo dhaafnay. Waxaa isugu yimi beelaha bahanugaaleed ee dacallada adduunka, Africa, Asia, Europe, North America ilaa Pacific, Australia iyo dhulka. guddigii qabanqaabada ee shirkaasaan anigu ka mid ahaa. shirkaasi wuxuu daaraa danaha beesha iyada ah, ururinta danaha beesha, guddiyo lagu sameeyey shirka oo mustaqbalka haddii ilaahay ka raali noqdo beesha ka caawin doona maalgelinta iyo maskaxda, arrimaha bulshada, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha siyaasadda, kadibna looga gudbi doono haddii ilaahay ka raali noqdo xagga iyo ururinta danta guud ee beesha dhulbahante. xagga keliya ee shirkan siyaasaddu kasoo taaban kartay waxay ahayd iyadoo mustaqbalka laga hadlayay in beelaha shirkan aad waxay iga weydiisay sabtidii 15 bisha dhacay wuxuu ahaa shir beelaha bahanugaalada isugu yimaadeen, danahooda qaaskaan ay ka tashanayeen, dhinacyo badan, isu ururinta beesha, shuruuc lagu hago arrimaha beesha wixii hadeer ka bilaabma, in talada reerka laysu soo ururiyo kadibna looga gudbo taa dhulbahante wax alla wixii laga qaban karo. shirku wanaag buu daaraa, xumaantu waa ka caaganayd. arrimo noocaasay ahayd. waxaa soo qaban qaabiyey in dheergaradka reerka, qurba joogta, waxaa kasoo qeyb galay qurba joog iyo dadkii dalkii joogayba. waxaa laga soo galay shirkan Africa, wadankeena aan jeclayna Soomaaliya, Europe, Asia, Australia, North America. shirku marka arrimo noocaas oo arrimaha bulshada, arrimaha horumarinta dhaqaalaha, wax ka qabashada danaha guud ee dhulbahanta ayuu daaraa. dad aada u fara badan oo daclada adduunka kasoo qeyb galay. shirkani waxaa loogu sameynayay shuruuc lagu hago beeshan,